shir muddo dhowr cisho ah uga soconaya magaalada Garowe ee caasimadda Puntland madaxda siyaasadda ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa si rasmi ah maanta u burburay kadib markii la isku fahmi waayay qaar badan oo kamid ah qodobadii ay ku wada hadlayeen dhinacyada shirkaasi ka qaybgalayay. shirka ayaa waxaa si rasmi ah uga qaybgalayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, hogaamiyaasha maamulada Puntland, Galmudug, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Duqa Muqdisho. waxaana shirka oo muddo dhowr cisho ah soconayay ay isku fahmi waayeen dhinacyada halkaasi ku shirsanaa qodobada qaar ee shirka uu quseeyay. si rasmi ah maanta oo Sabti ah waxaa magaalada Garowe uga dhoofay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Galmudug kuwaas oo isaga baxay shirkii ka soconaya magaalada Garowe caasimadda Puntland. kahor intaysan kaamba bixin garoonka dayuuradaha ee magaalada Garowe hadallo ay siiyeen warbaahinta waxaa ka muuqanayay inay ka xumaadeen qaabka shirka u soconayay iyagoona si cad u sheegay in shirka uu fashil ku soo dhamaaday. waxyaabaha caqabadaha ku noqday shirka waxaa ka mid ah tabashooyin inta badan ka imaanaya maamulada Galmudug iyo Jubbaland kuwaas oo ku eedeeyay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya inay faragelin ku hayaan siyaasadooda gudaha iyo doorashooyinka la filayo dhawaan inay ka dhacaan deegaanada Galmudug iyo Jubbaland. arrintan ayaa caqabad ku noqotay in si dhab ah looga doodo qodobo badan oo hor yaala madaxda ku shiraysay magaalada Garowe kuwaas oo sidoo kale ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashada 2020, qaybsiga kheyraadka iyo deeqaha iyo dhameystirka dastuurka dalka. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo lahaa martigelinta shirkan ayaanan ka hadlin isfahamwaaga uu ku soo ilaaday shirka iyadoona garoonka dayuuradaha ee magaalada Garowe la arkayay mas'uuliyiin ka tirsan Puntland oo halkaas ku sii sagootinaya labada hogaamiye ee Kismaayo iyo Dhuusamareeb ee ka carooday shirka halkaasi ka soconayay. rasmi ahaan saxaafaddu waxay dibadjoog ka ahayd shirkan muddada dhowrka cisho soconayay waxaase dad badan ay aaminsan yihiin in shirka waxyaabaha la isku fahmi waayay ay sidoo kale qayb ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya oo doonaysa in maamulada Jubbaland iyo Galmudug ay ka dhacdo doorasho iyadu ay ka warqabto. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay la dhacsaneen siyaasadda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoona ay xusid mudan tahay maalin ka hor dagaal ka dhacay gudaha garoonka dayuuradaha ee magaalada Kismaayo una dhaxeeyay ciidamo ka tirsan Jubbaland iyo maleeshiyad uu watay musharax madaxweyne oo Axmed Madoobe mas'uuliyadda dagaalkaasina dusha uga tuuray madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. kasuko eedeymaha inta badan ay isu jeediyaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya waxaa haddana dad badan niyad-jab ay ka muujiyeen qaabka uu ku soo ilaaday shirka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa weli ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland iyadoona sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre maanta uu ka duulay garoonka diyaaradaha ee Garowe. si kastaba ha ahaatee shirkan ayaa la filayay inay ka soo baxaan natiijooyin isku soo dhaweyn kara dhinacyada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. ha yeeshee dowlad goboleedyada ayaanan iyagu weli ku qanacsaneen hanaanka siyaasadeed ee madaxda Villa Soomaaliya. waxaana xusid mudan in mar sii horeysay ay jirtay madal ay ku midaysan yihiin hogaamiyaasha maamulada dalka ka jira kuwaas oo mucaarad mar ku wada ahaa dowladda federaalka ee Soomaaliya. ha yeeshee faragelino toos ah iyo kuwa dadban oo ay sameysay dowladda dhexe ee dalka waxay ka guuleysatay midowgii iskaashiga maamul goboleedyada iyadoona meesha ka saartay qaar ka mid ah hogaamiyaashii xilligaas ugu cadcadda kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo booskiisu hadda uu joogo Siciid Cabdullaahi Dani iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo booskiisa isna hadda uu joogo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo la aaminsan yahay inuu ku shaqeynayo siyaasadda dowladda iyo sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle oo ugu dambeyn ka baxay midowgii maamul goboleedyada. lama oga waxa xigi doona balse dadka ayaa waxa ay ka warsugayaan natiijada rasmiga ah ee ka soo baxda magaalada Garowe. Cumar Lakimaan wararka telefishinka caalamiga ee GBC.